السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد هالك وجانا لك فعليها الرداب ما أنتم عايزين هاي وربحين تسوى لو وربحين لو أسوى لو مهمة إن مدكوات waxay tahay in maanta xirooyinka dhadhaab saddex mar ay in tirkoob la bilaabayo mar dhow oo maanta la fiirinayay meelihii tirkoobka lagu qaban lahaa ee u imaadeen wafdigaas oo kormeerayay meelihii tirkoobka lagu qaban lahaa iyo si meelihii la hagaajin lahaa mid labaad oo ah in hay'adda MSF ay bilaabayso polio oo ay siinayso ilmaha ka yar under 5 0 to 5 waxa way 5 sano ilaa waxay ka hoose ay siinayso polio aan ku bilaabay midda hore waxaa jirta in warbixin ay soo baxday warbixinta soo ifbaxday inkastoo hadda wali loo imaan guddiga xirooyinka dhadhaab shaqaynadii jeemanada wali loo imaan oo laga sheegin in tirkoobkii uu soo ifbaxay oo jiro tirkoob ku aadan bishii lixaad oo soo socota tirkoobkaas oo wali faahfaahin fiican laga haynin oo maanta wafdi uu maaday uu fiirinayay meelaha lagu qaban karo wafdiga wuxuu tagay meelihii raashinka meelihii oo tirkoobka lagu qaban jiray sida transitka uu tagay uu fiiriyay kadibna wuxuu aaday ifooy xaga dheer asagana uu ku sameeyay warbixinta oo faahfaahsan waxay soo bixi doontaa asbuuc dambe oo loogu baaqay in shir la isku imaado oo la sheegay in shir lagu sheegi doono oo arintaas shir lagu la fikiri doono ayadoo la sheegi doono faahfaahinta ah meesha lagu gali lahaa lagu horbilaabo lahaa sidii loo gali lahaa wixii la rabo wixii lagu qaban lahaa sidii tirkoobka u dhici lahaa sidii loo gali lahaa xerooyinka u kala gali lahaayeen lagu sheegi lahaa shirka wali uu dhiman yahay laakiin wuu jiraa in tirkoob uu jiro oo dadka la tirkoob rabo uu jiraa mid labaad hay'adda MSF waxay sheegtay in bilaaw doonto polio taariikh 22 bishan 2021 ay ku bilaabay sabti soo socoto waay dhagaxli ahaan waxay ka soo bilaabi doontaa waxa la dhahay shaqsheemada u kor ee K J iyo clusters saan ay u socdaan EF ayaa ku xiga D iyo C ayaa ku xigaan sidii ilaa ka imaanayeen shaqsheemada waxa loo shaqeyn doonaa 22 ayaa la bilaabi doonaa oo soo socoto waxaana laga bilaabi doonaa dhammaan guud ahaan Garissa account ayaa laga bilaabaa kalima aha in xirooyinka kalima aha waxa xusin badan inay ku jiraan ifo iyo xaga dheer hata ay inkastoo hay'adda hadda maanta ay warbixin soo siisay MSF ay ka shaqeeyno Kenya Red Cross iyo IRC ay ka shaqeeyaan ayaga naftooda way sameynayaan oo way talaalka polio way sameynayaan waana under 5 5 sano iyo wixii ka yar ayaa la siinaya 5 sano wixii ka yar ayaa la siinaya polio oo ilmaha la siin doono polio marka waa arrimo muhiim ah fadlan polio dad waxaa jira ilmaha polio siinin polio waa muhiim fadlan nin kasta oo polio cunug gurigiisa uu xirnaa oo laga tagay maalinta lagu imaado guriga uu xirnaa oo ay joogeen meel ay jirtay fadlan aad helpost waa la dhigayaa meelaha xasaasi ah laga doonaa helpost laga doonaa fadlan helpost ku dhow aad cunugaaga polio uu ka tagay waa shay muhiim ah dadka polio ilmaha kala dhuunto fadlan polio ilmaha hala siiyo waa arrin muhiim ah salaadii shaqaalaha ku imaan doona albaabka soo qaraac doona dhoo ay qaraac doonaan marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa in arrintaas ay ka dhigaan arrin muhiim ah ay polio qaataan tan kale tan tirkoobka ah waxbahaas ku wareerina guddiga ayaa shir loogu yeeri doonaa guddoomiyaasha shandheerada dhammaan mas'uuliyiinta xerooyinka dhadhaab saddex xare ayaa shir loogu yeeri doonaa shirkaas ayay ku soo ogaan doonaan wax kasta oo laga sheego meeshaas sida tirkoobka loo galaayo sidii wax u dhacayaan inta maalin la qabanayo inta bilood uu soconayo faahfaahinta dhammaan meesha ayaa laga heli doonaa waxaan idin leeyahay si aad ula socotaan warbixinada muhiimka ah sida tirkoobkan iyo polio camal fadlan channelka Faaliyada Dhadhaab subscribe saar like share wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh